shimbir soo sumowday oo meel ku soo sumowday oo sumaysan oo xanaaqsan na anigu qof ahaan ma aqbalayo. علي عبد قادلي oo khabiir aqoon durugsan u leh arrimaha xayawaanka gaar ahaan xayawaanka duurjoogta oo maanta magaalada Hargeysa kula hadlayay qaar kamid ah warbaahinta ayaa sheegay in aanay guud ahaan dunida ka jirin xayawaan gorgor oo dadka cuna. Waxa sidoo kale sheegay in deegaanada Soomaalida dogto gaar ahaan Soomaaliland aanay jirin xayawaan noocaas oo soo gaadhay. Waxaanu meesha ka saaray hadaladii sheegayay in deegaanada Soomaaliland iyo Itoobiya ay ka jiraan xayawaan gorgor oo dadka cuna. Shimbiraha dunida oo dhan waa 10,200 baa lagu tilmaamaa dunidoo dhan baa ay joogaan marka anigu shimbiraha Asia iyo labada America ta waqooyi iyo ta koonfureed iyo Yurub iyo Afrika oo dhan waan soo maray marka aqoon baan u leeyahay shimbiraha dunida waxa kale oo waliba aqoon u leeyahay shimbiraha Afrika oo ah rubuc 4,000 oo shimbirood oo dhulka Afrika laga helo dhulka Soomaalidu degto waxa laga helaa ilaa 800 oo shimbirood ayaa laga helaa waxaan anigu oran lahaa taariikhda inta dad ahaayeen jiray shimbiro weyna la joogeen wax qoran oo dunida taariikhiyan wax dhow iyo wax fogaa oo la sheegay shimbiro dad weeraray oo wax laayay dad laayay lama hayo marka sheekadan dhulkeena Somaliland hawd bari ka timi wallahi waa yaab haddaba haddaan yara taabto in yar shimbiraheena مثلا shimbirta kuwa hilibka cuna waxa weyn xuurtan la keenay Hargeysa ee meydka hayda la toogtay ayaa horta u weyn oo ilaa 2 mitir iyo nus ah iyana waxa inoo tarta mooyaane waxba inaga ma dhiciso ku daafadeena ay cuntaa marka waxa ku xiga xuurta haadkan aynu nidhaahno gorgorka ayaa isna ugu xajmi weyn oo hilib cuna marka 7 nooc baynu lahayn haadka 3 un baa inagu haray 4 way dabar go'een adum waxaad leedahay xayawaankan la sheegayo in dadka cunaya ma jiro mise waxaad leedahay wuu jiraaye lama din wax cunay bal kala saarin labada arrimood waa su'aal wanaagsan su'aasha hadii maqashay waxa weeye ma waxaad leedahay waxaan wax dhacay maaha anigu waxa aan ka baqayaa oo aan iska yar ilaalinaya inaan idhaahdo dadka soo cawday eele dad baa naga dhintay haad baa waxna yeelay inaan idhaahdo been baa sheegaysan laakiin culuun ahaan aan aqaano anigu shimbiraha Afrika shimbiraha dhulka Soomaalida degan ee 800 shimbir dhan laga laayo xayraamaysa ma jirto oo cara awgeed wax yeelaysa dad shimbir soo sumowday oo meel ku soo sumowday oo sumaysan oo xanaaqsan na anigu qof ahaan ma aqbalayo Adaan kale waxa uu khabiirkani sheegay in aanay waxba ka jirin xayawaan ay dhawaan soo bandhigeen ciidamada booliska Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda iyo qof shacib oo sheegay in isaga soo weeraray xayawaankaasi dabeeta uu dilay waxaanu sheegay in xayawaankaasi aanu ahayn gorgorkii ay sheegayeen balse uu ahaa xayawaan oo ka amaba ahaa xuur wuxuu maan ka naxay xuur la keenay Hargeysa oo nin leeyahay iyagoo 11 ayay weerareen intaan qorigayga qaatay baan tii igu soo beegnayd baan toogtay waanigan degta soo saartay oog baan ka keenay waana xuur deewaka oo marka bulshadii la tusay oo lagu ashqaraaray waa xuurtan ku daafadaheena joogta kawaankan Hargeysa waa ta ka buuxda iyo halka qashinka lagu daadiyay naasa hablood marka ninkaas wuxuu inaga iibiyay in xuuri ay wax yeeshay hadalkani hadda ka soo yeedhay khabiirka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli deegaanada Somaliland si aad loo hadalhayay xayawaankaasi iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland arintani ka hadleen ay xaqiijiyeen isla markaasina ay sheegeen in xayawaankani jiro iyagoo qaarkoodna sheegayba inay qaar ka mid ah dileen xayawaankaasi وخضر إسماعيل محمد خضر مالي عبد الرشيد فهي وركها مقبهية عالمية بدأ أستون فور تي في هرقيسة